laadhan uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Axmed Cismaan Buuri ayaa soo dhaweyn ballaadhan loogu sameeyay duleedka degmada Dila oo markaasi kormeer hawleed uu ku soo gaarayay degmadaasi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa waxa ay gaadheen isbitaal weyn oo cusub oo laga hirgeliyay degmada Dila oo markaasi ay dhismihiisa qalabeyntiisa ay ka qayb qaateen bulshada kala duwan ee ka soo jeeda degmada Dila oo markaasi isugu jiray qolqol joog iyo qurba joogba. munaasabad ballaadhan oo loo qabtay furitaanka isbitaalkaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Dila, mas'uuliyiin kala duwan, bahda caafimaadka, mas'uuliyiin sarsare oo ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland iyo bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Dila oo iyagu isbitaalkaasi ka faa'iideysan doona. ugu horeyn waxaa halkaasi kaaleysa markaasina hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta degmada Dila xubno ka mid ah bahda caafimaadka. dadweynaha ku dhaqan degmada Dila oo dhammaantood hadalka iska daba qaatay ayaa sheegay in isbitaalkan ay si weyn ugu faraxsan yihiin. laakiin halkan way ka gudubtay MCH-gii maanta waxa loo gudbay dhakhtarkana dhulka deewad arkasaane dhulka annaga la nagu leeyo raadin doono dhakhtarka weyn laga dhisayo. laakiin waxaan leenahay dawladda annagu waan diyaarinanaa inaguna dhisa dad in la dhiso oo dadweynaha iyo dawladduba dhakhtarkii loo dhiso yaan kolley ilaahay ka rajaynanaa. dhakhtarka lanoo keenay waxqabashadiisa iyo dhakhtarkoo dhammaystiran inuu qalabkiisii helo, qalabkii loo soo dhammaystiro oonu qabyo wax alliyo wax qabyo naga noqonayo uuna jirin. waayo muddo ahayd muddadii la dhisay markii hore in badan baan soo dhaweynaa dhakhtarka iyo inta soo hagtay ee noo keentay iyo intii shaqaale ee joogtay awalba in badan. wasiirka caafimaadka iyo wafdiga uu hogaaminayaba waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada, allah noo kiin barakeeyo. haddaan reer bilaadnahay farxad weyn bay noo tahay, ilaahayna anoo barakeeyo. waxa weeye saacatul wasiir howlkaa iminka aad hor fadhido iyo ka halkaa ka soo jeeda intaba annagaa dhisanay, intaba waa inta aan dhisanay waad arki doontaa. sariiraa dhex yaalla, qalab badan baa dhex yaalla. waxaan aad iyo aad idiga codsanaynaa wixii naga dhiman ee maanta aad diyaar u soo noqoteen. magaalada Dilaad dee waa magaalada qadiimiga intaa leeg 30 sano ee Somaliland wax Soomaali dawladda ay ku biirisay horta kama muuqdaan. ka dhagtar Rabiil ahaan farxad weyn bay tahay inaan ka hawl galo kana mid noqdo dadka tisqaadka koobaad ku sameyn doona inay degmada Dila yeelato hospital ay kaga maarsami doonto baahiyo caafimaad oo kala duwan oo ay qabeen ubadkeega, hooyooyinkeega, dhalaankeega iyo dhammaan dadkeega waaweyn oo ay u tagayeen Booramo u jirta 30 kilomitir isla markaasina ay ku soo gaareen marar badan diif badan oo ka muuqata waxyaalo badan oo kala duwan oo runaanta Dila qaban lahaa ay dad badan ugu badbaadi lahaayeen. waxaan leeyahay madaxda marka in hospital la sameeyo marar badan macna badan ma sameeyso, dhakhtar in la dhex dhigaana macna weyn ma sameeyso. agaasimaha isbitaalka Rabiilana waxaan leenahay ilaahay kuwaas xilka ballaadhan ee lagu igmaday. kulle marka caafimaad laga shaqaynayo way ka duwan tahay waxyaalaha kale ka shaqayno. caafimaadkuna uu dhib badan yahay, laakiin dadkeedina inaan noqono ka community ahaan mataqaana anigoo ku hadlaya magaca community-ga mataqaana degmada Dila annagoo kulle qaybteeda ka aqoon ahaan waanu qaadan doonaa insha allahu tacaala. aad iyo aad waa tallaabo hore loo qaaday. waxaa ku mahadsan community-ga, waxaa dawladda laga rajaynaya inay soo dhammaystirto agabka ka dhimanaya shaqaalaha iyo magaranaysaay budgetkii iyo in dawladdu ay isbitaalada ku darsato waaweyne amoon hubaa inuu noqonayo isbitaal weyn oo haddii communityguna saa u diyaarsan yahay wixii dawladdana ay cabdullaahi sallallahu alayhi wasallam marlii hadalka waqti hadal la gaabinaya kala gaabiyey baan annagu ku jira dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda maanta lagu furayo isbitaalka Dila ee loo guuriyey MCH isbitaal dawladeed oo qaran oo weyn. waxaan u malaynayaa inuu yahay kuwii ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada ka degmooyinka ay jira ay kii ugu dambeeyey maanta la yidhi kuwii ugu dambeeyey ama kuwii ugu dambeeyey ay ahaaday ka mid yahay. Dila saacatul wasiir waxay xuntaa 13 tuulo degmada halkani populationkeedu marka intaas uu yahay hore waxay u tahay laakiin maalinteeda timid ee waqti hore loo degdegay yahay. marka loo eego suuqa dadka ku nool meesha oo loo qiyaasay dad waxay ilaa 20 kun ku dhow oo qof marka inay helaan bay ahayd laakiin maalinteeda heleen. cusbitaalada ee Somaliland marti sharafta kale
iyo dhammaan cuqaasha iyo dhallinyarada iyo dadweynaha reer Dila dhammaantoodba waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa kulley maanta sharaf weyn annaga noo ayna ka soo qayb galno degmadan oo aad u ballaadhan in badan aan ka shaqayn jiray duulooyinkeeda inay maanta yeelato cusbitaal ay ku soo hirtaan waa guul la gaadhay baan leh marka insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaa waxaan idiin rajaynayaa horumarkaad samaysateen in dowladduna idinku garab gasho aanu ballan qaadi doonaa in brograamka cusub upgradingka wasaaraddu ku dhawaaqday sidiisa loo hirgeliyo oo loola dhaqmay inay Dila tahay referral health center ama district hospital run ahaantii baahida weyn ee loo qabo waxa weeye inay lahaato hospital degmadan Dila waxa weeye waxa fududeynaya in badan maadaama waxa weeye iyadu xarun caafimaad ay tahay ay boormana muddo gaaban ku tagaan ama dadku ama gebile muddo gaaban ku tagaan waxa weeye dhimasho fara badan oo hooyooyinka iyo dayac fara badani runtii muu dhici karayna sababta hospitaalada wax ambalaasyada fududeyn jiray in hooyadii degdeg loo qaado laakiin farsamo ahaan deegaanka populationkiisu maadaama uu gaarsiisan yahay 50,000 oo qof wax ka badan waxa weeye waxa laga maarmaan ah inay yeeshaan hospital yeeshaan agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Mustafa Digif iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Ahmed Cismaan Buuri ayaa waxay halkaasi ka ballan qaadeen ka qayb qaadan doonaan doorka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland in maanta laga bilaabo ay noqoto halkani xaruntan noqon doonto cusbitaal loogu adeego bulshada u ballaaran ay noqon doonto cusbitaalkan ka koobnaan doona oo bixin doona adeegyo aad u fara badan wuxuu bixin doonaa bukaan jiifkii iyo bukaan socodkii labadaba waxa ku soo biiri doona casri ah waxa ku soo biiri doona tiyaatarka ama qalliinkii lagu sameeyay hooyada emergency lagu sameeyay lagu jeexayo hooyada waxaa halkan ku keenay shaqaalihii ugu horreeyay oo ah tartar aanu qiimaynay aqoontiisa kadibna wasaaraddu ku qanacday inuu bixin karo adeegyadaasi waxaa soo kordhaya shaqaale kale aad badan oo runtii ka qayb qaadan doona adeegyada kordhaya xaruntan Dila waxay ahaan jirtay waqtiyadii hore ee MCH waxay ahaan jirtay xarumaha loo soo qaato tusaalaha marka noqoto bixinta adeegga iyo sida uu nidaamsan tahay marka la eego waxyaabaha ay soo gudbin jirtay iyo adeegyada ay bixin jirtay waa meelihii aad ugu sarreeyay aad ugu sarreeyay bay ahaan jirtay halkan waxaan sheegay isbitaalka noqon doona isbitaal bixin doona adeegyadaasi oo dhan doona marka noqoto qalabka iyo shaqaalahaba waan ka sii baaragnay qalabkii oo dhan waan qiimeynay waan wasaaradda way yaalaan waan soo gaadheen waan dhigaynaa waan bilaabaynaa tiyaatarkii qalabeyntiisii sariirihii waxaa uun baahannahay waxaa loo baahan yahay oo kale in meesha la ballaariyo oo adeegu marka uu ballaadho way sii ballaaranaysaa halkani waxay noqon doontaa isbitaalka si weyn sii ballaaran waxaan haddahay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'ado badan oo diyaar la ah inay dhismihii ka qayb qaataan oo dhisaan oo dhammaystiraan si isbitaalka u ballaadho marka bulshadu waxaa looga baahan yahay inay dhulkii iyo meelihii laga dhisi lahaa inay hawshaasi ay ka howlgalaan insha allahu tacaala adeegyo aad u fara badan bixin doona bulshaduna ka dabooli doona baahihii badan ay hore u qabeen mana jiri doontaan insha allahu tacaala meel loo sii gudbin laakiin idinka waxaa laydinka rabaa dhulka inaydu ku deeqdaan si extension loogu sameeyo laino catchment areada maxaa ahayd dhakhtarkani waa 50,000 oo qof yaanu idiin dhuubanin bal haddee waxaa jira cudurro faafaa jira maxay ahayd sida booliyadoo kale sida coronaviruskoo kale sida TB-doo kale waxa weeyaan kolkaa waxyaabaha uu ka hortegayaa dee mid 1 iyo 2 iyo 3 toona maaha kolkaa waxaa la doonayaa maadaama meesha dhakhtar noqotay dee dhakhtar isku filan inuu noqdo oo aan kolba lala sii cararin runtii dhakhtarradii waad maqlayseen waxaa sahlay inay halkanaanay umushu ku dhiman waa waddooyinkaa dawladdu samaysay laakiin si waddooyinkaa aynaan uba saarinba umusha iyo wixii naga bukooda dhulku deeqa dawladduna ayadaa ka mas-uula inay kordhiso oo ay dhisto
annagoo dhan wayna hay-ad baanu la tegaynaa waxa weeyaan dowladdu ayadaa laynoo horumarka ayaa lagu daray wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa weeyaan de ayadaa ka mas-uul kolkaa wixii horumara ee caafimaadkaa ee shicibkeedu u baahan yahay runtii waxa weeyaan aan ku soo gebagabaynayaa horta marka horeba ilaahay cudur oo dhan ba haynaga hayo oo coronaviruskan ummaddii ka cabaadiyey allah haynaga hayo maxay ahayd idinkana waxaan idinka mahadnaqayaa oo aan wax la dafiri kara ahayn shalay baan idinka tegey maantana waa nimi shalayna MCH baad ku kordhiseen aqallo maantana kiibaydu ka dhigteen maxay ahayd dhakhtar kolkaa waxa weeye ruux markuu wax qabsado dee dadka iyo ilaahayba way la qabanayaan wixii aad qabsateena allah idiin barakeeyo mar qudhana anagu idinkama maaranno nasteexadiinaan ka maarmin cilmigiinaanaan ka maarmin waxtarkiinaan ka maarmin waanaanu idinku mahadnaqaynaa soo dhowaada gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa haddaad reer dila tihiin intaasi kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan iyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee munaasabadaasi ku sugnaa ayaa waxay soo indhaindheeyeen qeybaha kala duwan uu markaasi isbitaalkaasi weyn uu ka kooban yahay iyagoo markaasi soo arkay qalabka iyo dhismaha goobtaasi laga hirgeliyey taasoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan uu bulshadii dhismahaasi ka qayb qaadatay si weyn uga mahadnaqay waxaana uu sheegay in dadka ku dhaqan degmada dile iyagu iskood wax u lagu daydo isbitaalka weyn ee laga hirgeliyey degmada dila ee ka tirsan gobolka awdal ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaysan doona bulshada ku dhaqan degmada dila iyo hareeraheega taasi oo isbitaalkaasi markaasi uu fulin doono adeegyada kala duwan ee caafimaadka